salaamullah daawadayaal soo dhawaada mar kale fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe maanta barnaamijkeennan waxaan kaga hadlaynaa xaqiiqooyin iyo daraasado laga sameeyay xayawaanka loo yaqaan ayga kaas oo inta badan ka agdhow dadka isla mar ahaantaasina social animalka kaalmaha koobaad kaga jira haddaba daawadayaal qodobka koobaad waxa weeye xayawaanka loo yaqaan aygu waxa uu leeyahay garashada ama garaadka ama aqliga ilmaha yar ee laba jirka oo kale mararka qaar haddii aad loo tababaro isla mar ahaantaasina tababar dheeraad la siiyo waxa uu noqon karaa mid intaasi ka sii aqli badan waxyaabaha cajaa'ibka waxa kamid ah aygu waxa uu aqoonsan karaa qofka inuu cadhaysan yahay inuu faraxsan yahay iyo inuu murugaysan yahay daawadayaal qodobka labaad waxa weeye aygu waxa uu urin karaa xanuunada qaar qofka isagoon inta badan lagu sameeyay qaliin iyo waxba toona ayaa isagoo adeegsanaya sankiisa iyo urtiisa waxa uu urin karaa xanuunka jirka hoostiisa ku jira inta badanna waxa loo adeegsadaa xanuunada kansarka iyo waxyaabaha la halmaala haddaba waxyaabaha cajaa'ibka waxa kamid ah 40% dadka way ka wanaagsan tahay urtiisu meelaha 100 urteena 40 jeer ayuu inaga ur wanaagsan yahay ama waxayna urin karin uu urin karaa xayawaanka loo yaqaan aygu daawadayaal qodobka saddexaad waxa weeye aygu wuxuu ka mid yahay xayawaanada riyooda isla mar ahaantaasina aygu sida bini'aadanka oo kale ayuu riyoon karaa macnaha wuxuu sawiranayaa isagoo hurda inuu soconayo oo kale isla mar ahaantaasina sida bini'aadanku u riyoodaan aad ugu riyooto adigoo soconaya adigoo libax weerinayo iyo waxyaabo la halmaano sidaas oo kale ayaa u daawadayaa ayguna uu riyooda halkaana xayawaanada badankoodu aanay sida bisadaha oo kale aanay wax riyaa sameeynin qodobka afraad daawadayaal waxyaabaha cajaa'ibka waxa kamid ah aygu wuxuu dhagaha ku leeyahay 18 muruq macnaha dhagahiisa aygu waxa uu dhaqaajin karaa jiha kasta kaasoo dhagtiisu ay gees kaste u jeesan karto tanina waxa u sahlaysaa daawadayaal inuu meel fog wax ka maqlo isla mar ahaantaasina mararka qaar uu maqli karo waxyaabaha dhulka hoostiisa ilaa 1 mitir meelahaas ku jira isla mar ahaantaasina uu inta badan isagu dhagihiisa had badhan u jeedin karo daawadayaal inta waxaan ku daraynaa aygu waxa uu ka mid yahay xayawaanada wax la bari karo isla mar ahaantaasina ayda caadiga waxay baran karaan 40 ilaa 100 eray oo inta badan luqadda lagu bara ku xidhan tusaale ahaan afka Ingiriisiga oo kale waxay ka baran karaan 40 ilaa 100 eray sida daraasadda BBC-du samaysay ay sheegtay isla mar ahaantaasina kuwa militariga ama ayda militarigu tababartaan waxay baran karaan wax intaasi ka badan oo ah ilaa 250 eray inay baran karaan ay sheegtay